wafdiga ka socda dalka Turkiga uu hogaaminayay wasiirka difaaca dalkaas Hulusi Akar una kamid ahaa taliyaha ciidamada dalka Turkiga ayaa markii ka soo dageen gegada diyaaradaha Muqdisho waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo horkacay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed. wafdigan ayaa loo soo kaxeeyay dhinaca madaxtooyada dalka halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wafdiga ka socday jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Turkiga ayaa kulan la yeeshay dhigooda Soomaaliya kaas oo shirgudoominayay ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre. waxaana la jooga oo galabta soo gaaray magaalada Muqdisho wafdi oo hogaaminayay wasiirka difaaca ee Turkiga mudane Hulusi Akar iyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee Turkiga sida ciidamada badda dhulka iyo cirka. wafdigu waxa madaxtooyada qaranka ku qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kulan gaar ah la yeeshay wasiirka difaaca waxayna ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee taariikhiga ah ee qotada dheer ee walaaltinimo ee ka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya. wafdiga waxa qaabilay sidoo kale madaxtooyada ku qaabilay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirka gaashaandhigga taliyaha ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha ugu sareysay ciidamadeena. waxaan rajaynaynaa insha Allah in wada hadalladooda ilaa berri ay sii socon doonaan ayna ka wada hadli doonaan qaabkii loo horumarin lahaa wada shaqaynta ka dhaxaysa labada dhinac. dhinaca kalena wasiirada maaliyadda qorsheynta qaranka iyo beeraha ayaa iyana kulan la yeeshay madax ka socota hay'adda Tika oo kamid ahaa wafdigan Turkiga ee maanta soo gaaray Muqdisho. saaxiibtinimada Turkigu uu leeyahay Soomaaliya kaliya ma aha taageerada dhinaca dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka iyo horumarinta Soomaaliya balse Turkigu waxa uu ka caawiyaa Soomaaliya sidii ay ugu soo laaban lahayd kaalintii ay ku lahayd gobolka gaar ahaan dhinaca xuduudda ciidamada oo Soomaaliya uu ku tababaro ciidamo lagu talagalay in ay kala dambeynta iyo xasilinta waddanka salka u dhigaan. Cali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho.